kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka Xareed Media waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga mudiirka oo habeenada Isniinta iyo Khamiista soo galayaan aad ka daawataan janalka Xareed Media daawadayaal waa habeenimo Khamiis ee soo galayso 26 bisha labaad ee February sanada 2020 qodobada aad ku daawan doontaan barnaamijka bandhiga mudiirka waxaa kamid ah oday Japanese ah oo si lama filaan ah u argoostay kadib markii loo geystay xatooyaya badan sidoo kale waxaynu idin haynaa daawadayaal Shiinayska oo ka cabanaya faquu ka dhashay caabuqa corona sidoo kale daawadayaal barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadan doonaa xubintii falaqaynta ciyaaraha xalay dhacay kooxaha Napoli iyo Barcelona oo barbardhac ku kala baxay kulankii lugta hore ee wareega 16 UEFA Champions League sidoo kale waxaynu soo qaadan doonaa Bayern Munich oo Stamford Bridge goal weyn kaga soo gaartay Chelsea kulankii lugta hore ee wareega 16 UEFA Champions League intaasi daawadayaal waa qodobada aan ku qaadaa dhigi doona barnaamijkeena fadlan daawada hadii aad nagu cusub tahay ku soo biir asxaabta nala jaan qaado oo subscribe saar channelka gambaleelkana furo muuqaalkana like saar lana wadaag asxaabtaada si aan u ogaano qodobka ku xiisa geliyay fadlan follow inooga reeb waatahay daawadayaal markaana waxaynu gudagaleynaa barnaamijkeena qodobkeena ugu horeeyana waxa uu noqonaya oday Japanese ayaa si lama filaan ah u argoostay kadib markii loo geystay xatooyo yaa badan booliska Japan ayaa qabtay oday 61 jir ah oo ka soo jeeda gobolka Ota Warid ee caasimadda Tokyo kadib markii uu wado yaa badan u argutay oo uu xaday kursi baaskiil sanadkii hore booliska ayaa ku soo eedeeyay Akiyo Haturi inuu xaday 159 kursi baaskiil kaamirooyinka ilaalada ayaana soo qabtay odaygan oo kursi ka siibaya baaskiil qofkii iska lahaa uu ka maqnaa kuna ridanaya salada baaskiilkiisa kadibna meel fog ula baxsanaya nasiib xumadiisa qofkii ugu dambeeyay ee uu kursiga ka xado waxa uu ku dacaweeyay booliska xatooyada iska yar ee lagu sameeyay arintaas oo ka dhigtay in boolisku ay dabagal ku sameeyaan odaygan markii ay aqoonsadeen waxay aadeen gurigiisa si ay kursiga uga soo raadiyaan laakiin waxay ku arkeen ay aad u la yaabeen waxay gurigiisa ka soo heleen 159 kursi baaskiil oo guriga yiilay markii baaritaan lagu sameeyay odaygan ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay sheekadiisa waxa uuna sheegay in laga xaday hal kursi sanadkii 2018 xilligaasna uu aad uga xanuunsaday xatooyada loo geystay markaas ayuu go'aansaday in dhibaatadiisa ay dadku wada dareemaan oo dad badan uu ka argoosto intii uu xatooyada loo geystay booliska la xiriiri lahaa si uu u garto qofkii xaday kadibna uu uga argoosan lahaa ayuu isku bedelay tugxada kuraasta baaskiilada Haturi waxa uu booliska u sheegay waxaan ku khasbanaaday inaan kursi soo iibsado xagaagii 2018 inta kadib waxaan go'aansaday inaan argoosto waxaan jeclaystay inay dadku dareemaan waxaan dareemay oo kale markii boolisku ay baaritaanka fureen ayaa waxay dib u eegeen dambiyadii uu Haturi galay boolisku waxay soo bandhigeen isagoo xadaya kursi gudaha caasimadda Tokyo waxayna saxaafadda u soo bandhigeen 159 kursi oo uu xaday si dadkii iska lahaa ay u aqoonsadaan ninkan hal kursi laga xaday magdam wuxuu ku qasbanaaday inuu dadka dhan kuraaska wada xada markii kuraasta baaskiilada ayuu dadka ka wada xaday
109 kursi ayaana kursigiisa ayaana gurigiisa laga soo helay marka booliska ninka aan Israel hal kursi waxa ay gurigiisa ka soo qaada guriga marka tageen 109 kursi ee ka soo heleenba oo uu soo xaday markaasoo ninka wuxuu ku micnay arintaas xoodaan hal kursi liiga xaday dhibaatada ay kala kulmay dadka dhan inay dareemaan ayaa arinta u sameeyay ayuu yiri waata daawada wili barnaamijka bandhiga mudiirka ayaa daawanaysaan markana qodobkeena kale ayaynu eegaynaa Shiinayska ayaa ka cabanaya faquuq ka dhashay caabuqa corona Shiinays caabuqa corona wareerino marka waa lagu jinsi faquuqooya marka cabasho ka keenay marka aad ay u caawdeen Sammy Yang waxay markii ugu horeysay fahantay inay wax khaldan yihiin kadib markii ay tagtay isbitaalka ay dhakhtaradeeda ku sugan tahay ee magaalada Berlin waxaana isbitaalkiiba laga hor istaagay inay gudaha u gasho dhismaha dhammaan bukaanada kale waxay si caadi ah u galayeen albaabka isbitaalka halka Sammy Yang oo ah farshaxamiiste ku takhasustay make-upka ay ku khasbanayd inay dhakhtaradeeda ku sugto banaanka xilli uu jiro qabowga daran ee bisha January markii ay dhakhtaradii u timid hadalkii ugu horeeyay oo ay tiri wuxuu ahaa arintan ma aha wax kugu saabsan si shakhsi ah laakiin ma qaabilayno bukaano Shiinays ah hadda sababtuna waa caabuqa corona ee ka dilaacay Shiinaha ayay tiri Sammy Yang oo la hadlaysay BBC-da wax fursad ah la iima siinin inaan sharaxaad iska bixiyo si aan u sheego inaan caafimaad qabo xitaa mar dhow uma aysan safrin Shiinaha gabadhan markay dhakhtaradeeda oo magaalada Berlin joogto markay u timid gudaha soo galaysa la banaanka lagu celiyay markaas ay dhacday liimu weydiinin si aan u sharaxo inaan caafimaad qabo in kale albaabka laga celiyay ay dhahday hatta fursad liima isiinin inaan iska warbixiyo inaan caafimaad qabo hatta xeedada ma dhow hatta Shiinays hatta ma safrin sidee albaabka lagu celi karaa marka isbuucyadii uu caabuqan ku faafay dunida waxaa soo shaabaxday in falal badan oo cunsuriyad ah loo geystay dadka Shiinayska ah ama qof walba oo muuqaal ahaan u eg dadka bariga qaaradda Aasiya iyadoo xitaa taageero naxariis ah loo muujiyay dadka Shiinayska ah ee u dhintay cudurkaas gaar ahaan geeridii dhakhtarkii digniinta ugu horeysay sameeyay ee Li Wenliang dadka laga tirada badan yahay ee Aasiya iyo kuwa Shiinayska ahba waxay sheegeen in nacayb loo qabo iyaga iyo cunsuriyad la socota caabuqa ay la kulmeen cunsuriyada ka dhanka ah dalka Shiinaha iyo dadkiisaba ma aha mid cusub nacaybka noocaas ah waxaa si weyn loo diiwaan gelinayay oo uu jiray muddo qarniyo ah laakiin qaababka kala duwan ee hadda loo wajahay saameynta caabuqa corona ayaa daaha ka rogtay sida uu u qalafsan yahay xiriirka uu caalamka waqti xaadirkan la leeyahay Shiinaha tusaale ahaan in qof Shiinays ah loogu yeero caabuq waa arin aan cusbayn dalalka ay dadka Aasiya ku yar yihiinna waxay ka noqdaan bartilmaameed qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dalalka Faransiiska iyo Australia ayaa horay loogu daabacay ciwaano xanaf leh oo ku saabsan cunsuriyada ka dhanka ah Shiinaha markii uu soo baxay warka sheegaya in caabuqa corona uu ka dhashay suuq lagu iibiyo hilibka xayawaanka duurjoogta ah waxaa dunida oo dhan qabsaday dacaayada ku saabsan in dadka Shiinaha ay cunaan wax kasta oo dhaqaaqa shacabka wadamada qaar oo ku yaala isla qaaradda Aasiya gudaheeda ayaa u ololeeyay in ay iska fogeeyaan dadka Shiinayska ah dalalka Singapore iyo Malaysia 100,000 oo ruux ayaa saxiixay codsi dawladda looga doonayo inay dadka u dhashay Shiinaha ka mamnuucaan soo galista wadamadooda dawladaha labada dalba waxay hirgeliyeen nooc mamnuucid soo galitaan ah dalka Japan qudhiisa ayaa dadka Shiinayska ah laga dhaleeceeyaa waxaana lagu tilmaamaa argagixisada dhinaca caafimaadka
xushmad iyo xushmad darro wada jira. dadka qaar waxay aaminsan yihiin in nacaybka loo qabo Shiinayska uu sabab u yahay habdhaqankooda marka loo eego xasradda hadda taagan iyo dhibaatooyinkii hore u jirayba. dareen guud oo caalamka oo dhan laga qabo dadka u dhashay Shiinaha waa xushmad iyo xushmad darro wada jira, sida uu sheegay Professor Low. qaar ka mid ah dadka waxay aad ula dhaceen sida uu Shiinaha ula tacaalay xaaladda sida caabuqa corona, iyagoo tusaale ahaan u soo qaadanaya tallaabooyinka degdega ah sida in isbitaal weyn lagu dhisay maalmo gudahood. laakiin waxaa kale oo ay ku dhaleeceeyeen sida aysan u awoodi karin inay xakameeyaan waxyaabaha qaar sida ganacsiga hilibka xayawaanka duurjoogta ah. dabcan adduunka oo dhan isku mid loogama nacba dadka Shiinayska ah sida dalalka galbeedka Yurub, Mareykanka iyo meelo ka mid ah Aasiya. shacabka ku dhaqan dalalka Koonfurta Ameerika, Afrika iyo Bariga Yurub waxay Shiinaha ka arkaan dhanka wanaagsan, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay xarunta cilmi baarista ee Pew. dowladda Shiinaha ayaa dhankeeda sheegtay in wadamada ay cadowga isku yihiin ay siyaasadeeyeen arrimahan. waa tahay daawadayaal, qaybaha dambe ee barnaamijkeena ayaynu isla soo gaarnay. markana waxaan u gudgalaynaa xubintii falaqaynta ciyaaraha kulamada caawa la ciyaari doono iyo weliba kuwa la ciyaaray. haddii aynu ku hormarno natiijooyinka ka soo baxay wareegga 16-ka lugtiisa koowaad naadiyaashii ciyaaray. kooxaha Napoli iyo Barcelona ayaa barbadhac ku kala baxay kulankii lugta hore wareegga 16-ka UEFA The Champions League. kooxaha Napoli iyo Barcelona oo dhibco ku qaybsaday kulankii lugta hore wareegga 16-ka tartanka UEFA The Champions League kadib markii ay ku kala baxeen barbadhac gool ah. qaybta hore ciyaarta ayaa lagu kala nastay gool waxba ay ku hogaaminaysay kooxda martida loo ahaa ee Napoli. daqiiqadii 30aad kooxda Napoli ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta, waxaana gool waxba ka dhigay Dries Martinez kadib markii uu ka caawiyay goolkan saaxiibkiis Zelensky. qaybta labaad marka dib la isugu soo laabtay, labada kooxood waxay sameeyeen qaab ciyaareed aad u fiican, iyagoo abuuray fursado badan oo goolal ay isaga kala dhali kareen. balse daqiiqadii 57aad kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa dhalisay goolka barbadhaca, waxaana gool ka dhigay Antonio Griezmann, waxaana goolkan ka caawiyay Nelson Semedo. ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay barbadhac gool ah ay isku dhaaf waayeen labada kooxood ee Napoli iyo weliba Barcelona. haddii Napoli Barcelona barbadhac ku heshiiyeen kulanka kale haddii aynu eegno, Bayern Munchen ayaa Stamford Bridge guul weyn kaga soo gaartay Chelsea kulankii lugta hore wareegga 16-ka tartanka UEFA The Champions League. Chelsea doo garoonka joogto ayaa laga adkaaday. Bayern Munchen ayaa garoonka Stamford Bridge guul kaga soo gaartay kooxda Chelsea kulankii lugta hore wareegga 16-ka tartanka UEFA Champions League kadib markii ay kaga adkaatay 3-0. qaybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray barbadhac eber ah ay isku dhaaf waayeen labada kooxood ee Chelsea iyo Bayern Munchen. qaybta labaad marka dib la isugu soo laabtay, labada kooxood waxay sameeyeen qaab ciyaareed aad u wanaagsan iyagoo abuuray fursado goolal loo fili karay. daqiiqadii 51aad waxaa bilowday bandhigii goolasha. kooxda kubadda cagta Bayern Munchen ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta, waxaana gool waxba ka dhigay Serge Gnabry, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Robert Lewandowski. daqiiqadii 54aad kooxda Bayern Munchen ayaa dhalisay gool labaad, waxaana mar kale u dhaliyay Serge Gnabry. ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 2-0. Robert Lewandowski ayaana mar kale goolkan ka caawiyay. laakiin sheeko waxay ku xumaatay taageerayaasha Chelsea ee ku sugnaa garoonka Stamford Bridge kadib markii uu Robert Lewandowski ka dhigay ciyaarta 3-0 ay ku hogaamisay Bayern Munchen. ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo gabagabowday 3-0 ay guusha ku raacday kooxda martida ku ahayd garoonka Stamford Bridge ee reer Germany ee Bayern Munchen. Chelsea
waa la jabsaday iyadoo lugta koowaad ay sidaas guuldaro Bayern Munchen kala kulantay. guud ahaan daawadayaal waa inaga inta barnaamijkii aad kala socoteen Xareed Media. intaan ku kulmi doona barnaamijkan kiisa xiga waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.